maroodigii adduunka ugu weynaa oo waran la geliyey kadibna natiijadii ka dhalatay noqotay inay Afghanistan taariikhda ka baxdo inay Ciraaq taariikhda ka baxdo in wadamada islaamka oo dhan gacanta lagu qabsado in diin dhan lagu qoro inay tahay terrorist diin dhan oo caalami ah in lagu qoro inay tahay diin irhaabiya oo qofku hadduu waxsa u macneeyo waa terror la yidhahdo waa dhacdo weyn oo soo martay waxaa iyada cajiib oo dhacdo weyn noqotay inuu Maraykanka isagoo ordaya Afghanistan ka baxso meel uga baxan oo garan weyn iska socdo wuxuu ka tagayna ma jirto istaraatiijiyadu sameeyna ma jirto lidaalika neera Cabdallah Nufaysi wuxuu dhahaa Maraykanku wuxuu yaqaanaa sida wax loo dumiyey soo loo dhiso Ingiriis baa yaqaan Ingiriisku wax uu dumiyaa waxna uu hagaajiyaa wuxuu meesha ka tagay uu sameystaa Ukraine waa dhacdada ugu culus waxaan oran karnaa qarniga 12 waana dhacdada taariikhda ka geli doonta meel laf dhabar macnaha waa isbedelka ugu weyn maxaa yeelay taxliil baa istaraatiijiga ku sameynaa Maraykanku iyo reer galbeedku ruushka waxay doonayaan dhooqo Ukraine ay dhex dhigaan sidii tii Afghanistan oo Maraykanku ku qastay inay ruushku noqoto ruushkuna wuxuu sii dejiyey dhooqada inuunan gelinayn oo maartay si kale uga dambaasho laakiin dunidu uu si kale u ekaato iyadna oo sidii ahaan jirtay ka baxdo marka labadaas fikradood baa meeshaas ku haysta waana dhacdada ugu weyn ee qarniga 21 uu ku bilaabmay sidii qarnigii 20aad ugu bilaabmay dagaalkii koowaad adduunka waqtiga ugu weyn oo uu mashquulay oo lagaga faa'iideystay waa intii September 11 ay dhacday galbeedka iyo ruushka waxa ka dhaxeeya dagaal istaraatiiji ah istaraatiijiyada ruushka waa maxay istaraatiijiyada ruushka waxa weeyaan waxa loo yaqaano geopolitical waa juqraafi siyaasi ah juqraafiga siyaasiga waxa weeyaan dowladihii oran jiray midowga Soviyetic amba koor baba dowladda Ruusiya cudba dowladda Ruushka loo jiray ee abuuratay 1500 iyo taariikhda dunida ka abuuratay oo laga xukumi jiray caasimadda Ukraine Kiev baa laga xukumi jiray dowladdaas Kiev waa dowlad Ruush ahayd wixii oo dhan way soo noqdaan Ukraine markii la weerarayay dowladda Ukraine iyo kaakiciyay waxay tusayeen garab joogaan markuu ruushku soo dhaqaaqayna wuxuu ku dhacay su'aal cad bay sheegeen waxaan dagaalka ma galayno sabab maxaa u galay dagaalka de laba shay loo galay horta hooyadu kuma jirto NATO oo ma soo galayso wixii labo heshiiskii NATO ma soo galayso labo arinta muhiimka waa taawaya ruushku dowladda la ciyaari kara maaha oo dowladda la haysata marka dagaalku wuxuu noqon doonaa wujuud jiritaan wala sababinaya dagaalka ma galayno gargaar baan ku siinaa gargaarka bixin maxay waa gargaar nooci ah gargaarka noociga ee quality-ga oo hub ah oo lacag ah oo dhaqaale ah oo ruushka la cuna qabateeya wuxuu ku tusayaa inay ugu tala galeen inay dowladda ruushka dagaalku ku dheeraado wayna bilaamateen oo ku dheeraaday ay hubkan lagu soo gurayo wadanka uu isku bedelo hubkii Afghanistan iyo ka jabhado oo markaa ruush iyo jabhada isxiraan oo ay ka baxdo Ukraine oo xitaa gobolada ruushka kale ay aado arintaasi waxay keeni doontaa marka dambeeto inay dowladda ruushku ay iyagu soo tala galeen ay daciif nusqaanta taasina waa istaraatiijiyada labaad ee dagaalka loo galay arin saddexaad baa jirto dagaalka istaraatiijiyadiisa ku jirta waxa ku jirta Maraykanka iyo reer galbeedka waqtigii dunida ka talinayeen inay dhamaato taa maxaa ku tusaya dagaalka Ukraine iyo weerareen Putin wuxuu booqasho ku tagay China wuxuu la soo kulmay madaxweynaha China waxay ka soo sheekaysteen waxyaalo aan la ilaalin marka taasi waxay ku tusaysaa inay ka tashadeen inay gaadhay waqtigii adduunkan la lahaan lahaa Maraykan iyo reer galbeed وفعلا وين كنت زين سعد مركز جورجيا وموسن غرغارين يوكرين وموسن غرغارين arrinta afraad ee ugu dambaysa ee dagaalkan uu ku socdo waxyar dagaalku had iyo jeer afar arrimood weeyaan waa xarbi afkaar waa dagaal afkaar oo ideolojiyada dagaalka kaasina sabab had waa qoray dagaalku waa masaalix waa interest ka labaadi uu hoos yimaada ka saddexaad waa strategical oo waxa la isku daray nufuud meelo muhiim ah iyo la isku daray iminka Israa'iil oo qolkiiba boqol Maraykan ahayd madaxweynaha Ukraine wuxuu maanta dhigtay waxay rabaan inaan ku cuno Israa'iil oo Ruushka inuu gacan geliya marka Israa'iil wuxuu shaqeynaya Ruushka wayna kula taliyeen isliib loo kurtiniyo Imaaraadki waad aragtay Iran oo Maraykan kaliya
waan ka saaraynaa xaraska jamhuuriga xaraska sawriga badowgi oo miliskii badowbee la geliyey waa ka saaraynaa oo ninkii larkiin waa fasaxaynaa halkaasay socotaa adiga iyo qadarna ka iibiya Yurub maaragtay gaaskii waxaa isbedelaya caalam dhan baa isbedelaysa madaxweynihii Iiraan baa hadlay isagoo kor madaxa u taagaya wuxuu yihi dowladda yar wax loo yeedhiye banihin danahayga waa naqaanaa arrinta kale oo muhiimka oo meesha ka dhacday waxa weyaan sacuudigii oo shaaca ka qaaday inuu xusiyiinta la sheekaysanay oo weliba riyaad ugu yeedhaya oo majlis tacaawun dowladii khaliijka maraya oo inay ku qasban yihiin maxaa yeelay batroolka halis galaya xali wuxuu soo saaray sacuudigu inay xusiyiintu halis gelinayaan batroolka adduunka waxayna soo tuurayaan iyo halis gelinaya batroolka adduunyada wuxuu ka iibinayaa inaad adduunkii waxaa la arkay in haddeeta kacbadu ayna Washington ugu dhahin oo ay badanaya qibladihii siyaasaddu inay badanayaan la arkay marka taasina waa isbedelada istaraatiijiga ee dhacaya arrinta afraad ee dagaalkan ku jira wax weeyaan ee muhiimka oo iyada la fahmaa waxa weeyaan waxaa dhacaya in ay dhammaato waqti loo yaqaanay waqtigii la dhegeysanayey siyaasiyiinta reer galbeedka quraatay inka moogtahay waxaa la isku raacay warbixinta ugu fiican ee dagaalka laga bixiyo ayaa bixiya waxaa bixisa wakaalado ruusha waa loo dagaalamay waa la xidhan qofna ma maqna taas aljaziira ku xigta okay ahwy siyaanantii waxaa la ogaaday inay wararka reer galbeedku ay bixiyaan ay yihiin wax kaana lasoo dhex maraan qanaad meel soo dhex maraan oo dadka si loogu sheego xurriyadda iyo ra'yi al-aakhir kaloni ra'yiga iyo ra'yi kala wada maqlina ma jirto waxaa la maqlayaa ra'yi quraatay oo ah ruushku waa cadow ruushku waa leeyahay ruushku waa naazi okay dadku iminka waxay ka fikirayaan war shalay Suuriya malyan iyo badh baa ka soo baxday Yurub albada ka xidhatay xaggana 4 malyan ba iyo 5 malyan ba socdaa xalay waxay yidhaahdeen wadamada Yurubka iyo maaragtay NATO waa inay dowladaha reer galbeedku u qaybtamaan si isku mid ah 600 aan qaadano si degdeg ah ha u qaadano bila hadal marka maxay qoriyaan jaraa'idka qaarkood raggu weynoo in dheegi waa isku wajibaan dadka marka al-insaniya al-waahida kidoni yaanku hadliyo al-hadara al-waahida wixii baa soo yaran uu soo buraya waxa kaloo cajiib ah aad u la yaabo soo ku soo beertay barigii oo baad Afghanistan la tagay wadaadada duqar baa Afghanistan tagay Ukraine wadaadada kale qaarada waa tagay waa jihad kale jihadka wuxuu ahaa biraami laakiin jihadka waxa geesinimo halka baa laga baxayaa Canada laga baxayaa waxa laga soo baxaya Faransiis Ingiriis baa laga baxayaa safaaradii Ingiriiska la kortubna dad British baxay dadku waxay ku leeyihiin waxa tagaynaa oo indheeni buluuga loo yimid waa kortagayna marka muslimiintu leeyeen war diintii waa loo kortagayna oo waatiir geeso markaas qiraa'ad kala soo baxaya marka waxa la xasuusanaya islaantii Tatar markii ay dagaalkii uu qabaa u dhamaaday tana la dhigay waxa war ciidanka NATO aska baabiina khalaas maxaanu samaysanay NATO warso kala tagtay maxaa ku falaa islaan khatar ay tahay waxay tiri no ma jiro laba cadow baa haray cadowgan asfarka ah oo cawlan oo cadowgan iyo ruushka iyo Chinaha iyo cadowgii akhtarka waa islaam labadii cadow way jiraan marka ciidanka loo sameeyay waa soo qoraa waxyaalo badan baa loo sameeyay haynaamina way tiri